waxaa ka mid ah calaamadahaas duhuurul fitan inay soo baxaan fitnooyinku macnaheedu waxa weeye imtixaanaad dadka diintoodii la imtixaanayo masaa'ib balaayooyin islayn khilaaf dagaallo nabadgelyo darro inay soo baxdo muslimiinta dhexdoodii la isku diro ayadana waxa weeyaan xilligay bilaabato iyo muuqashadeeda iyo badashadeedu waa astaan waxay u tahay inay adduunyada dhammaanayso qiyaamadii soo dhowday axaadiis aad u fara badan buu macnaha nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah xadiidu abi muusa alashcari wuxuu nabigu yuri sal lla alay wasalam ina bayna yaday saacati fitanan ka qiطaci alleyli almudlim saacadda waxaa ka soo horeeya imtixaano iyo fitnooyin sida habeenka mugdiyadiisoo kale ah habeenka mugdigiisa sida la ogsoon yahay markuu soo galo qaybtiisa hore way fududahay xogaa iftiin baa ku jira qaybta ka dambaysaa ka sii madow oo ka sii mugdisan qaybta ka sii dambaysaa ka sii daran qaybtay ka dambaysay ka sii daranta fitan midba midda ka dambaysa ay ka culus tahay ood isleedahay middani markay timaaddo wallaahi tanka wax ka daran ma leh haddana ta ka dambaysa markay timaaddo wallahi tanaaba ka daran tu kalaa ka sii dambaysa mise tanaaba beentiri wixii hore o dhan fitanka noocaasa imaanshahooda ayaa qiyaamada ka soo horraysa buu nabi uri sal lla alay wasalam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam yusbixu alrajulu fiiha mu'minan wa yumsi kaafiran fitankaasi markay dhacaan ruuxu wuxuu waabariisanayaa isaga oo muslim ah gabalkuna wuxuu u dhacayaa isagoo gaal ah ama gabalkaa u dhacaya isagoo mu'min ah waaguna wuxuu u baryayaa isagoo gaal ah yacni daqiiqad buu isbedelaya yacni waxa weye labada saacadood ee isku xiga midna diintii buu ka baxay midna wuu soo galay fitanka jira iyo mawjadaha iyo dhibaatooyinka iyo halista jirtay dadka diintooda haysata ayuu nebigu ka warramaya sal alla alay wasalam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'im fitankaasi markay yimaadaan ruuxa fadhiya een istaagin ee fitnada ka fadhiista wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex taagan ka taaganna wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex socda ka dhex socdaana wuxuu dhaamaayoo ka khayr badan yahay midka dhex ordahaya yacni kullamaa aad sii dhex gasho ayaduna way ku sii dhexgeli shanta markaad la gasho 10kay kula geli markaad iska uruuriso way kaa uruursami ninba ruuxba ruuxuu kaga xeel dheer yahayna ayaduna way kaga xeel dheerta macnahaasuu nebigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu nebigu sal lla alay wasalam xaaladdaa markay timaaddo fitanku yimaadaan oo muslimiinta laysku diro qabiil bay isu laynayaan koox bay isu laynayaan deegaan bay isu laynayaan ayagii baa dhiiggoodii xalaashaday isku ibtilaysan xaaladdaasi markay timaaddo nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam fakasiruu qisiyakum qaansooyinkiina jajabiya qaansadu waa hubkii lagu dagaalamayay waqaticuu awtaarakum xadhigga qaansadaa la yidhahda watarka xadhiggii qaansadana jara oo gooya qaansadiina jabiya wadribuu bisuyuufikum alxijaara seeftii aad ku dagaalamayseenna intaad ula tagtaan dhagax afkeeda la dhaca si u afbeesho af aad wax ku dishaba sayna u yeelanin markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam intaa markaad samayso haddii laguu soo galo oo muslimkii aad dagaalamayseenee balaayadu idinka dhex taagnayd uu kuu soo galo adoo hubkaagii jajabiyey waxaad noqotaa aadam labaduu dhalay ee isdilay koodii khayr ka badnaa noqo buu nabi uri sal lla alay wasalam aadam labaduu dhalay ee isdilay koodee khayr ka badnaa ma gacan ku dhiiglaha khayr badnaa mise kala dilay baa khayr badnaa kala dilay baa khayr badnaa nebigu marka wuxuu leeyahay kala dilayo noqo laakiin ka wax dilaya ha noqonin macnaheedu fitankaasi markay yimaadaan waa xaalad adag oo ku tusaya adduunkan inuu fasaaday ficlan nebigu geeridiisa wakhti badan kama soo wareegin markay fitanku muslimiinta ku bilowdeen asxaabu rasuuli llahi sal alla alay wasalam mawqicatuljamal bay iskaga hor yimaadeenoo imtixaan dhexdooda ka dhacay iyo fitno mawqicatu sifiin ayay haddana isaga hor yimaadeenoo imtixaan iyo fitan dhexdooda ka dhaceen nebigana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummaddayda dhexdeeda seeftu mar hadday ku bilaabato laynta islaynayaan ay bilaabato
ilaa qiyaamadu intay ka dhammaanayso seeftaa dhexdeeda laga qaadi maayo buu nabi sallallahu alayhi wasallam ilaa intay qiyaamadu ka imaanayso seeftaasi way socon seefta macnaha waxa laga hadlayaa hubkii waagaa lagu dagaalami jiray bay ahayde noocyada hubka oo dhan baa macnaha laga wadaa marba hadday iriddu furanto oo fitanku furmaan wax afjari kara ma jiro way soconayaanoo maalinba meel unbay gelahayaanoo ummad baa isbaabi'inayso oo islaynayso oo fitankaasi marba marka ka dambaysana way sii siyaadayaan saan u tegi doono ilaa heer la gaadho labada isdilaysa ayna garanaynin waxay isu dilayaan ka wax dilayana ma yaqaano wuxuu u dilayo ka la dilayna ma yaqaano sabab loo dilay ilaa heerkaasi gaadhi doonta sana xadiis nabiga uu tagi doono sallallahu alayhi wasallam arrimahaasi waxa iyaduna ka mid tahay astaamaha ku tusaya qiyaamada inay soo dhowdahay waxa